السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تنقو علين هدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز سلام تلقى قاضو حيث سيسدد كينا ديارو يهين كودغيستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدو ورئيسا إله بحمد إسكاله ومان تنو كسي فرصدان أناغو نبات قبلنا ماشي سكوي بانو مدة لباد walaalkeeni Jibriil oo lagu magacaabay inuu noqdo madaxweynaha ku meel gaarka dawlad goboleedka koonfur galbeed inaan u hambalyeeyno midda kalena inaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inaan mahadnaqan u sameeyno aan ku dhahno waad mahadsantiin aad iyo aad fursadooyin badan oo walaalkeeni Jibriil aad soo siiseen aad ku magacaabdeen madaxweyne ma ogtahay koonfur galbeed oo mahadnaqaas meesha u joognaa beeshan ma ogtahay deegaan Soomaaliya waxa wax lagu qaybsadaa 4.5 beesha garan waxay ku jirtaa digil iyo mirif ka dhalasho maahane digil iyo mirif deegaan wadaag bay ugu jirtaa sida Soomaalida kale oo digil iyo mirif ku jira meesha marka faafaalada dad badan oo meesha ka hadlaa ma ogtahay ka bixiyay sidan geedana ay ku jiraan marka walaalayaasheeni digil iyo mirif le deegaan wadaagaas digil lagu magacaabo jeegada ama qof mirifle lagu magacaabo taasa nagu wada filan aniga waxaan rabaa walaalkayga Jibriil inaan moogtahay ku dhiirigeliyo dibka hadda ka taagan bay dhabo waad ogtahay fursadan gaaban oo lagu siiyay ku dadaal inta bulshada meesha degan dibkan moogtahay ay ka badbaadaan ku dadaal magacaasa ka weyn wax walbo ugu dambeystii maadaama waqtiga uu aad u dheer yahay una socdo moogtahay magacaabista jegada markay dhacday waxaa maqlay social media aan ka arkay moogtahay dadkii iscabaareynaya waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inuu sheego sida runta ah qof la hogaamin karin asagana ma hogaamin karo nimaan sinaan ku ogolayn adna sareyntiisa ogolaani waxa waa talooyin jiro marka waxaan rabaa bulshada reer koonfur galbeed inay ogaadaan wax la wada leeyahay moogta shafqaraacashi iyo waxyaabaha aan la sameeynin hab tala wada hadal iyo habaad lagu sameeyo arin yaro walaalkeygii Mheshimiwa Muhammad uu ka hadlay oo anna ay ii qorneed baan rabaa inaan maro arintaas oo ah annaga markaan nahay bulshada Soomaaliyeed oo ku nool Kenya waan la yaabnaa dawlad goboleedyasha Soomaaliya waxaad arkaysaa madaxweyne dawlad goboleed ah rabo inuu la tartamo madaxweynaha federaalka oo rabo inuu u jawaabo madaxweynaha federaalka waa arin cajaa'ib ah yani in kibirku meesha gaaro madaxweynayaasha dawlad goboleedyasha
soomaaliya ay rabaan inay la tartamaan madaxweynaha federaalka anaga haddaanahay soomaalida kenya iyo dhaqanka waddankan dowlad goboleed uma jawaabi karo madaxweynaha waddanka inaan ka hoos imaano nolosha bulshada ku jirto marka soomaalida ballaaran oo adduweynaha joogto u sacbinaa qabiil ahaan ugu sacbinaa madaxweynayaasha gobolada Soomaaliyeed mas'uulka ah waxaan rabaa inay ogaadaan inay ka taxadiraan waddan adduunka ku jira maantadan oo dowlad goboleedka ay siday rabaan ugu jawaabaya madaxweynaha ma lahan Soomaaliyana ay noqonin waxa la rabaa inay hoos imaadaan madaxweynaha federaalka taasna waa waano because waddan ma noqon doontaan haddii qof walba geesku joogo uu rabo inuu la macaamilo qof allo asaga soo raadsado adduunka ka mid ah sida hadda Somaliland arinta ka socota camal marka maadaama fursadda maanta aan meeshu joogno ay fursad muhiim ay tahay dadka ka soo qayb galana badi ay yihiin bulshada Soomaaliyeed oo Kenyaan ah waxaan rabaa hal shay inaan idinku dhiirigeliyo midda oo ah xilli hadda la goosanayo voter registration la joogaa voter registration u dadaala inaad registrationka voterka aad samaysataan Soomaalida wadaninimada khafiif bay idinku tahay qaasatan Soomaalida Kenya waxaan rabaa inaad ogaataan codkaagi inaad soo muujiso sharaf baad ku heli hadda markaad aragtid Gachagua iyo markuu ka hadlayo Soomaalidu wuxuu ka hadlayaa waad maqlaysaan haddii baayaca mushtariyaasha islii ay ku mashquulaan bicsharada bes dhibka hal maalin codka lagu ridaa aysan ka qayb galin waxaad noqonaysaan ummad dulowdo dawlad waxa ka ogeen dawladda waa inaad xaq ku yeelatid codkaaga rabaa inaad ku soo muujisid waxaan rabaa marka bulshada Soomaaliyeed oo Kenya ku nool meel walba joogaan inaad ogaataan xaq aad u balaaran oo waddanku uu ka rabo ay ka mid tahay inaad voter registration aad samaysatid maalinta kuraha la ridaa inaad banaanka soo istaagtid dibada ku ridid codkaagi aad moogtahay muujisid taa waxaan kaga baxayaa annaga tookadan bulsho Soomaaliyeed haddaanahay waana ku gaarnay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan meesha joogay kuwii meesha ka maqanba inaan codkeena si toos ugu taageerno madaxweynaha William Samoei Ruto arinta ma isla qabnaa waa mahadsantiin aad iyo aad intaasaan rabaa inaan kaga baxo walaalkaygi Jibriil fursad aad u muhiim buu Ilaahay ku kasay Soomaalinimada muuji xaqa muuji bulshada la isku hayo muuji tala aad magac ku heshid dadka ka dhalatana magac ay ku helaan kadib wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh